السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كيني مهد بره إن شاء الله تعالى. ما أنت وحن إنها يا وليال عشر آد وحيسة بدن يوان كيسة قرنا إنسان وحيسة لي هاي conversation ووضع شاكيسي ووضع شاكيسي الأحمر يا قوادا اللي لهدو عنب يا قوادا اللي لهدو سهرة إن شاء الله تعالى سانفيلي آد بدوغيه لدونتان كسو دوادا قران وعشرة أنا أوتري قلدتك باللغة أساسية إن شاء الله تعالى أدو فرصدا دقيست عشر كرداميسو وإن أد معناها روح ذا إن شاء الله تعالى سي كلا ديغان بانكوغو كلا ساري دونا إن شاء الله أري أيان كوغو فسري دونا سي أد أفهمتو وحنا أغا فايديستو إن شاء الله مركا ديقونا ولا لميسو هكا عاجسين إن شاء الله انت وحدير ولا هدي اد نوع عصب تاي سبسكرايب ده جنبلك الريح اول سي تابو ان شاء الله 10 كما سيغي دونان markaas kadib subscribe noo dhe asxaabtaada la wadaag si ay uga faa'iideystaan ha ka xaasidin insha Allah taala waad ka faa'iideysaa waliba like ta noo taabo waa dhiirigelin bay noo tahay waliba commentiska wixii aragtiya inoogu reeb aad nagu dhiirigelinayso insha Allah taala ama waxaad nagu macnaha nagu dhiirigelinaysa ama aad nagu macaan ku raadaya sheeg aad aragtada nagu la wadaagaysa insha Allah inoogu reeb hoos intaba waa inoo dhiirigelin aad iyo aad baad u mahadsantahay haddii aad nala sii joogtay sidoo kale like ta noogu dadaal share dhe sii qaybi insha Allah asxaabta la wadaag mar kaste insha Allah taala muxuu ahaa commentiska haddii ay wax jiraan insha Allah taala fikra hoos inoogu reeba waa inoo dhiirigelin aad iyo aad baad u mahadsantiin kusoo dhawaada cashirka conversation wada sheekaysi conversation anab how are you sahra magacyada waxaan u akhrinayaa qaab Soomaaliya insha Allah taala maadaama aad Soomaali tahay Soomaali baan kugu akhrinayaa marka waxaa laga yaabaa inaan anab aan ku dhaho Englishkaaga kugu akhriyo لكن هذا حنقول ترى قلنا الصومالي آخرسا English إن شاء الله تعالى آخرسا Anab, how are you? Sarah, I am well, my sister. Anab, what are you carrying? I am carrying a school bag. Are you going to school? Yes, I am going to school. Good. Which school do you go? I go to Juba Primary School. Which class are you? I'm class 3. Can you spell an English word? Yes. Okay, spell girl. Okay, G I R L. Thank you, my sister. Anab ayaa su-aasha ku hormaraysa waxay leedahay how are you see tahay Sahra see tahay how sidee tahay you adiga Sahra see tahay halkaas markaan ku noqdo conversation waxaa leedahay confa CONVER inta ku joogta waa confa waka inta dambana waa session saasa leedahay marka insha Allah taala dhaw ayuu ka laabin conversation markaas how are you say tahay Sarah say tahay Sarah ayaa leh I am ani waxaan ahay well mid wanaagsan my sister abayo I am ani waxaan ahay well mid wanaagsan ama waxaan sister abayo Anab ayaa waxay dhahaysaa what maxaa are you adiga carrying aad sidataa carrying aad wadataa what maxaa WHAT are you adiga carrying aad wadataa carrying what are you carrying maxaa wadataa Sara ayaa leedahay I am anigu carrying waxaan sitaa school bag boorsadii iskuulka carrying waa wadasho carrying 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 wadasho wey schoolna de waa dugsigii bag waa boorsadii school bag baa la marka ilmaha boorsada ay u qaataan iskuulka ay garabka gashtaan ayaa la ama dhabarka saartaan
I'm carrying a school bag. School bag baan wataa, boorsada iskuulka ayaan wataa. sayte are you adigu miyaad tahay de are you adigu miyaad tahay going mid u socda to school iskuulka. Are you going to school? Are you going to school? School ma u socota. Are you adigu miyaad tahay going mid socda way going socda to school iskuulka ma u socota. Yes ha I am anigu waxaan ahay going mid u socda to school iskuulka. ama waxaad haysaa I am anigu going waxaan u socdaa waa isku baabinaysaa meeshaas waa isku abanaysaa lianna I'm hadda micnihi waa yeesho way adkaanaysaa. I am going waxaan u socdaa to school iskuulkaan u socdaa. Good hagaag ayay tiri marka good hagaag wanaagsan. Which is school macnaa waad fiican tahay which kee way which is school iskuulkee do you adiga go aad aadaa. Which school do you go? Which kee way kee ama tee hadduu dhadiga hadduu labiyo isku mid weeyaan. Which schoolkee do you adiga go aad aadaa. Which school do you go? Which school do you go? Iskuulkee aadaa. S oo Sara tiri I aniga go waxaan aadaa to Jubba Primary School. Iskuulka ama dugsiga primary-ga ah. Primary waa dugsi hoose dhexe 1 ilaa 8 baa primary la isku dhahaa. Jubba magaciisa weeyaan. I go waxaan aadaa to Jubba Primary School. Iskuulka ama dugsiga school waa kelmad English ah. afkeena waa dugsi weeyaan. afkeena maxaa la school dugsi baa lagu dhahaa. School primary ah oo macnaha hoose dhexe ah oo Jubba la yiraahdo ayaan aadaa. I go waxaan aadaa to Jubba Primary School. marka school waa dugsigii primary waa hoose dhexe oo la isku qabtay weeyaan. saas weeyaan asaasiga 1 ilaa 8 Jubba waa magaca iskuulka. I go waxaan aadaa to Jubba Primary School. iskuulka hoose dhexe Jubba la yiraahdo. Which ay tiri which kee which which kee ama tee hadday dhadikayn. Which class fasalkee are you adiga aad tahay. which zamana waxaa loo isticmaalaa maalaya aqalka dadka looma isticmaalaya mar mooyaane mar khaas ah mooyaane inta badan dadka looma isticmaala. markii shay aad weydiinaysid which book buugee which pen qalinkee which mobilekee which computer which markaa leedahay shaygaas which goat ride which lion which markaas shay ka hadlaysa ama maalaya aqala ama shay dhinsan ama shay nool haba aad u doonay yaa which la qaataa. classna waa fasalkii. which class are you fasalkee tahay. which class are you which class fasalkee are you ate adiga. waxay tiri I am ani waxaan ahay class fasalka 3 saddexaad. I am class 3 fasalka saddexaad baan 3 meeshan 3da waa th oo la israaciyay. th marka la israaciya tha baa loogu dhawaaqa tha ama dha ilkaha carabka ay ilkaha kor hoos ku dhajinaysaa markii ay bilowga yihiin. inta badan waa la adkeeyo xarafka daal iyo dha ayaa laga dhigaa. daal ama dha laga aqriyaa waa la adkeeyaa ariga laga xiraa dha 3 laakiin haddii oo muxuu ahaa ay dhamaadka joogto mathalan sida mouth iyo month iyo kala gadaal hadday jirto dhamaadka ay th dhamaadka joogta inta badan ariga la geliyayo xarafka tha laga dhigaa tha haddii ay dhamaadka jirto th hadday dhamaadka soo marto sida teeth oo kale sida month oo kale sida muxuu sheekay kale muxuu erey badan saasaa jira gadaal hadday soo marto waad ariyeynaysaa. haddii kale inta hore soo jirtana waad xiraysaayo dha oo kale 3 oo kale oga wadi adayga gelinaysaa. I'm class 3 fasalka saddexaad baan marka 3 haddaad ta akhriso 3 tiraa 3 hadday geed baa la yidhahdaa marka adiga waa inaad akhrisaa arigii thade. I'm class 3 fasalka saddexaad baan ahay 3 waa 3. okay can you adi ma awoodaa can awood weeye sidaas ka loo akrinaya sida hadda san lama dhahaye ka baad u akrinaysa wixii waa c markaad ingaadinaysa c a n baadi laakiin akhriska ka dhig can ma awoodaa you adiga spell inaad ingaadisa an English word erey English ah luqadda Englishka word waa
maxaa spell hingaadi way spell hingaadi spell hingaadi. Can you adima awoodaa spell inaad hingaadiso an English word erey ingiriisi ah English word ma hingaadin kartaa? Yes ha okay hagaag spell hingaadi gaal hingaadi spell gaal ereyga gaal la yidhaha hingaadi spell hingaadi ficil camal u dheh spell hingaadi gaal bal gaal noo hingaadi ereyga gaal la yidhahda noo hingaadi gaal. waxay tiri Saara okay hagaag G I R L waa kan xaraf G baa la dhahaa I weye R weye L waa la kala goynaya G I R L okay waan ku hingaadi fiirso Canab baa soo gudbay waxay tiri thank you waa mahadsan tahay my sister abayo thank you waa mahad you adan ku celinaya my sister abayo thank you my sister my waxay iga wey maanaa sister walaashay thank you my sister walaal waa mahadsan tahay and thank you all for listening insha Allah taala adinkan dhegeysiga aad baad ugu wanaagsan maanaa aad ugu mahadsantihiin kusoo dhawaada cashirka insha Allah taala thank you very much assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.